آله وصحبه أجمعين وبعد ولا لا مسلمين وحن إن شاء الله بإذن الله تعالى أنو شيء يا ولا ليال إن أي صائف بحضي أما مدة تنبل لهذا الهيئ علامات كم إذا علامته النبي إنه شيء صلى الله عليه وسلم وهاد صبحتان كدجال العور ولا صعتان دجال العور حديث فربضن أي النبي صلى الله عليه وسلم كجور من قصة ديسا هسه هاته وحامانته سعد الله أركي أو لعدي أو سعدان الله أركي mid ka mid ah calaamadihi uu nabigu inoo sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayh nabigu wuxuu yiri markii aakhir zamanka la gaaro waxa soo bixi doona ninkaas oo il cawaran isla markaana sheegan doona inuu yahay ilaah ninkaasi ummaddu fasaadin doona dad badan baa raaci doona dad badan buu leen doona wax badan buu kharibi doona laakiin waa ka mamnuuc in uu galo Makka iyo Madiina ilaahay ayaa Makka iyo Madiina markasta difaacda isla markaana markii uu meel kasta soo kharibay ayuu wuxuu isku dayayaa buu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu galo magaalada Madiina مدينة مركو دبعين وقالوا أيوه وحول لكل ما يدجال العور يقوم كمركا للسعودي مقالده عيدا مفر بدن أي كوج جدامين إسلام مركان وسنجلي كرين مركا يدعى على تاسي ولا ليال وحو فورا يا بور كم إذا بورها مقالده كوني ذا كيال وحنا كو أورندونا قوم كي سبع ليري مركو مقالده جلي كرواي أيوه وحو كتو سيا قوم كيسي ميل فوق بورتو شيء أيوه وحو أورندونا دجال العور موجودان قصرقا موجودان عد meesha ku yaala markaas ay oran doonaan ha markaas oran doona waa masjidkii waxa weeye maxamed weeye masjidka nabiga sallallahu alayhi wasallamna waxa uu nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam inuu aakhir zamanka noqon doono qasri laakiin xilligii nabiga uu ahaa dhoobo iyo sanadadii ka dambeysay intaas oo qarni oo ka dambeysay wuxuu ahaa dhoobo ahaa maanta marka waxa weeye calaamadii nabigu sheegay ee dajaal cawar qoomkiisana uu tusi doono oo ah qasri cad in ay noqon doonto waxa weeye masjidka nabigu maanta qasri cad buu noqday saad u jeedaan dhalada uga jeedaan waxa weeye calaamadaasina waa calaamada ugu horeysa ama waxa cad ee maanta cadaanka ee muuqaalka dhabta ah la og yahay waxa weeye nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam xadiiska uu ku sheegay 1400 sano intaas ka hor ayaa maanta cadaatay marka walaalayaal waxaan idinka codsanayaa in aad xifdidaan 10 aayadood ee ugu horeysa suuratul kahfi qofkii xifdiyo 10 aayadood ee ugu horeysa suuratul kahfi ma la kulmayo dajaal cawar sharkiisana waa uu ka magan geliyaa ilaahayna waxa weeye isaga iyo dajaal cawar waa uu kala magan gelinaya marka 10 aayadood ugu horeysa suuratul kahfi xifdiya qof kasto 10 aayadood xifdiya ilaahay sharkiisa waa uu ka magan gelinaya una si sheergalay walaalihiin walaalayaal fiidiyowgan qof kasto fiidiyowgan ummadda muslimiinta iyo walaalahood gaarsiyana ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaa inuu sharka dajaal cawar iyo fidmadiisa ilaahay ka magan geliyo inaga idinka ilaahayna ka magan geliyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeye qof kasto muslim oo khayrka si sheergalayna ilaahay waxaan uga barnaa subxaanahu wa ta'aala inuu isagana ubadkiisa iyo maalkiisa iyo naftiisa ehelkiisaba uu ka badbaadiyo sharka dajaal cawar waa wax muhiim ah in la isku baraarujiyo calaamadaas oo calaamad maanta muuqata ah oo loo wada jeedo waxa weeye waxay cadeynaysaa soo bixitaankii dajaal cawar in ay soo dhawaatay taana waxaanu kaga badbaadi karnaa sida nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam in aynu xifdino 10 aayadood ugu horeysa suuratul kahfi marka saas aynu ballan insha Allah sina sheer gareeya waaniga walaalkiin Shamsuddin Makaawi salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh